roob da'ay waxaa hindisaadiisa lahaa in laga qodo halkan naxariistii allaha siiyey madaxweynihii dalkan ugu horreeyey ee aadan cabdilla cismaan waxaana ebiyey oo dhammaystiray madaxweynaha isaga ku xigay allahaasna naxariistii siiyo cabdirashiid cali sharmaake saakana waxaa ka muuqda dayacaad u baahsan hadday dekada ahaan lahayd hadday haama ahaan lahayd hadday ahaan lahayd matoor hadday bir gudaha ku jirta ahaan lahayd halkani waa ceelka roob da'ay ee degmada Balanballe waxa uu kamid yahay ceelashii ugu horeeyay ee degmadani laga aasaaso wuxuuna jiraa sida ay noo sheegeen dadka deegaanku in ka badan 50 iyo dhowr sano ceelkan oo muddadaasi jiray ayaa ah isha koobaad ee inta badan bulshada deegaanka kuwa reemiga ee booyadaha inta badan biyaha ku hela iyo xooluhuba ay ka faa'iideystaan hase yeeshee saaka jawiisu waa ka duwan yahay jawiyadii hore halkan oo ah goobta aanu ku sugannahay ceelka gudihiisa waxa ka jira xaalado kala duwan oo marxalado ah oo la soo gudboonaatay ceelkani oo ay ka yihiin dayactir la'aan uusan helin muddo ka badan 30 sano ceelkani iyo waliba system solar la'aan aad uga jirta oo qayb ka mid ah dayactirka ayadoona ceelkani sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta iyo dadka deegaanka oo bartaani warbaahinta sooyaal kala hadlay ay u baahan yahay in uu helo dayactir iyo sidoo kale in xaaladda sixir barar ee shidaalka oo kor u kacday darteed oo ayadan u baahan yahay sol bulshada iyo waliba maamulka degmada oo goobtani warbaahinta kula hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda kala duwan ee ceelkan iyo marxaladuhu soo maray ayagoona sheegay in loo baahan yahay haatan in ceelkani uu helo gurmad degdeg ah qaasatan inuu helo dayactir isugu jira mid asaga gudihiisa la dayactiro iyo waliba system solar cusub oo uu helo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo arrintaasi ka hadlay waxaan joognaa matoorkii labaad oo ugu facweynaa Balanballe waagii la dhisay oo roob da'ay la oran jiray matoorkaasaan joognaa matoorkaas wuxuu ku yaalaa wadnaha magaalada Balanballe ku yaalaa waa halbowlaha ugu weyn oo dadku uu ka faa'iideysan jiray ilaa dawladdii maxamed siyaad barre ilaa xilliga ay dhacdayna ma uusan helin wax dayactir ama dawladeed ah ama mid hay'adeed ah nama uu helin waxaa hadda dhacay arrin adag ayaa soo food saartay taasoo ummadii ku nooleed iyo maalkii cabbi jiray intuba ay hadda qatar ugu jiraan inay maaragtay ay ugu waxaysmaan waxa weeye ceelkaasu ma helin wax dayactir ah ma helin soolarada hay'aduhu bixinahayeen ma helin dayactir dawladeed iyo mid hay'adeed waxaa intaas la iskala rafanayay raggii gacanta ku hayay ay kula rafanayeen iyo habba maaragtay dadka shacabka inay habba birba meel ka keenaan markii wax ka halaabaan waxaan codsanaynaa ceelkaas hay'adihii ku shuqul lahaa iyo dawladda ee galmudug haba ha noqoto ama dawladda dhexe ha noqoto ama hay'adaha ku shuqul ha noqoto ceelkaas waxaan uga baahannahay in la soo gaaro oo aan u helno soolarkii biyaha loogu waliba laba soolar ceelkan waa halbowle laba soolar oo iskaalmayso marna uusan daminin iyo waxaan u rabnaa dayactir wuxuu ahaa ceelka taariikhdiisa laga soo warramay waa roob da'ay waxaa hindisaadiisa lahaa in laga qodo halkan naxariistii allaha siiyey madaxweynihii dalkan ugu horreeyey ee aadan cabdilla cismaan waxaana ebiyey oo dhammaystiray madaxweynaha isaga ku xigay allahaasna naxariistii siiyo cabdirashiid cali sharmaake waxaa mashruuciisu bilowday 7 waa laga cabbay wuxuuna la baxay magaca roob da'ay la yidhaahdo ayada oo dhulkan uu ku dhex yaallo ama ku hareeraysan dadku ay ugu dhintaan oo dad badan oo bulshada dhexdeeda magac ka lahaa hadda si aan rabin inaan halkan ka sheego nawaaxigiisa ay ugu dhinteen baahida u dabeelay awgeed magaca wuxuu la baxay la yiraahdo roob da'ay saakana waxaa ka muuqda dayacaad u baahsan hadday dekada ahaan lahayd hadday haama ahaan lahayd hadday ahaan lahayd matoor hadday bir gudaha ku jirta ahaan lahayd iyo adeeg bumbo matoor nooc kasta oo uu ahaa waxaa ka muuqda basaas aan isleeyahay iyo dayac baahsan ma u mudnayn roob da'ay inuu abaal u yeesho baasaaka ka muuqda waxaan la hadlaynaa kuwii ku soo badbaaday ee wax ku soo bartay ee biyaha roob da'ay iskoolada iyo dugsiga quraanka ama ku soo dhigtay ama maalkooda iyo naftoodaba ka soo cabbi jiray ee maanta u heli kara wax la yiraahdo inay wax ka dayactiraan oo wax ku darsadaan oo wax ka nooleeyaan dhammaantood waxaan ka codsanaynaa sida hore loo sheegay wuxuu ku yaalaa wadnihii ummadda waqooyi bari koonfur waxa uga soo aroorayaa wataa saacadan oo 3 saac oo subaxnimo ah ayaa waxaa dul dhooban
lodii oo aad og tihiin noolaha oonka ugu nugul xoolaha la dhaqday inay yihiin waxaan u taagannahay dhibaatooyinka ka jira deegaanka ama balanballe gudihiisa ka jira oo ay kow ka tahay abaarta biyola'aanta soo food saadhay baan u taagannahay ceelkan wuxuu dhisan yahay muddo 60 sano ku dhow intaasna waa la isticmaalayay waa daalay ceelkaani ummadda balanballe joogtana bartanjas markii la xisaabiyo 88% ceelkaanay ku nooshahay ilaahay baa nolosha iskale laakiin ceelkaanay tasarufataa oo cabbaan oo biyo ka heli jireen dad iyo duunyaba waxaan codsanaynaa si buuxda u codsanaynaa hay-adaha samafalka deeq-bixiyayaasha ah iyo dawladda galmudug iyo midda federaalka iyo jaariyadda dibadda iyo cid kaloo islaam ah wax ka qaban karta intaba inay ceelkan wax ka qabtaan ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmadani balanballe jaamac xayle oo asaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay ama ka warbixiyay ceelkan iyo waqtigu soo jiray iyo inta dadka xaddiga leeg gaaraya ee uu gacanta ku hayo ceelkan waxaana codsaday in hay'adaha kala duwan wasaaradaha iyo cid kasta ay qusayso arintani ay dayactir ku sameeyaan Wallaahi barakaatu saaka waxaan halkaan isugu nimid inaanu ka warbixino baahida biyood oo ka taagan degmada balanballe meesha hadda aan joognana waxaa weeye matoorka la yiraahdo roob da'ay oo ka mid ah matoorada degmada balanballe runtii matoorkaanu wuxuu waraabiyaa 5,000 oo qoys dad ka badan ayaa biyo gelin ugu jirtaa oo waraabiyaa wuxuu waraabiyaa booyadaha dadka duurka jooga biyaha u qaada wuxuu waraabiyaa dadka ku soo aroora oo xoolaha hadda dekadaha tuuran intaasoo dhan oo uu u hayay baahidooda u dabooli jiray waxaa noo muuqatay baahidooda inuu gabay runtii ceelkaanu soolar male matoorna male kolonyadii ku jirtay inay ku go'do baa hadda ay halis u tahay dekadihii waa burbureen haamihii waa burbureen waxaan ka codsanaynaa wasaaradda tabarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug iyo hay-adaha samafalka in ceelkan maadaama lagu jiro xilli abaaraad si degdega ceelkan in wax looga qabto Ahmad Bashir Salmaan Xilif Radio TV-ga soo yaala degmada balanballe ee galbeedka gobolka Galgaduud